السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal waa salaamantihiin meel kasta aad joogtaan. waa walaashiina marin muriidiye mar kale iyo muuqaal cusub. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada janaalkiina waa qalbi furan, niyad saafi ah, gacmo furan. subscribe, like, share, comment, ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaaleyga qaaliga ah. waxaa idin leeyahay subscribe-yada cusub kusoo dhawaada janaalkiina waa gambaleelka amjariska fura sidaa u naqatiin daawashooyinka ugu horeeya ee waxyaabaha xiisaha leh aan soo geliyo. sidaa u daawatiin like gareeya, ehladiin la sheer gareeya. dadkii hore nala joogayna aad ayaad u mahadsantihiin, garabkii aad taagantihiin. idinkana sidoo kale like gareeya, sheer gareeya. kommentiyadiina quruxda badan, ducadii amaanta iskugu jirana aad ayaad ugu mahadsantihiin. maanta maxaa idin wadaa bariis iyo hilib la uumateeyey oo aan waxlay ku uumateeyey dabka, yacni kuukarka. markaad inta waxaa noo saaran biyo. hilibkii ayaa rabnaa inaan biyo ku karsano. kiilo hilib ayaa meeshaa noogu jiro. cashiyeer macaan badan, bariis qurux badan oo hilib la uumateeyey iyo bariiskana aan maraqiisa ku kariyey. waad ila arkaysaan sidaan u suubin doono. beejkayga bariis badanaa ku jiro oo kale noocaan u suubinayo, kana gooni uu ka yahay. hadda markii hilibkaan oo soo karkaro, markaa xumbadii dhan waxaasna aan ka qaadnay, wixii gadaal ugu darayo waa ila arkaysiin. waa isku soo naqad wanaagsan walaaleyga qaaliga ah. walaaleyga qaaliga ah waa kanaa xumbadii dhan ayaan hadda ka bixinaynaa. waa kaas waa ka nadiifiyey. inta waxaan ku haysanaa hal xab basal aan soo jarjaray, 5 xabo heel, 3 xabo qarfo waaweyn, sanjabiil, huruud iyo tuun aan soo jarjaray. halahaan ayaan rabaa marka inaan ku karkariyo oo lafahaas hilibka macaankiisa iyo maraqa aan bariis ku karinayo inuu isdhex galo ayaan rabaa. markii hilibkaan oo soo bislaado, maraqii ayaan markaas ka miiranaynaa, aan bariis ku karsanayno. waxaan dhan markuu isku dhiidhiimo waan ka miiraa. maraq nadiif ah ayaa iiga soo baxa, aan bariis ku karsanayo. waa isku soo naqanayna. walaaleyga qaaliga ah waa kanaa hilibkii maraqi sidaan quruxda badan ayuu noo naqday. marka hadda hilibku waa noo bislaaday, maraqii wax dhan isku dhiidhiinayoo naqday. marka hadda hilibkaan kasoo baxsanaa. maraqane wasaqdan dhan oo heelkii iyo basashii, tuuntii, wixii dhan oo isku dhiimay ayaan ka miiraa. marka hilibka sidaan u shiilanaya ama uu mataata aan ugu dhiganaya ayaa idin tusinaa. waa isku soo naqanaynaa. walaalahayga qaaliga ah waa kanaa hilibkii waxyar saliid ayaan kusoo darnay. sidaan ayaan rabnaa inaan ku uumateeno oo dajiijiyey. waxaan ku darsanaynaa xawaajiyaal isku dardar, hal xab maraq jumbo ah, waxyar cusbo ah, kulli ayaan kusoo wada daray. waxaan inta ku haysanaa sanjabiil fresh ah, huruud fresh ah, tuun iyo kabsar oo fresh ah. maraqaan soo qaadanaynaa, xoogaa yar aan ku darsanaynaa. waa kanaa sidaan ayaan ku umateynaynaa. kadib wixii gadaal ugu darayno waad ila arkaysiin. waa isku soo naqanaynaa. xoogaa ha isku dhiimo waxaan dhan waa isku soo naqanaynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kanaa maasha allah, caraftiisa ma malaysan kartid. waa kanaa hilibkii kastaas yar dibka ayaan u gaabinaynaa. sidaa ayaan ku umateynay. waa dajiijiyiin. inta waxaan soo qaadanaynaa saliid, saxdaan ayaa ka dhigaynaa. waa dajiijiyiin. dib yar ayaan soo qaadanaynaa. waa lagu uumateynaa. kadib dibkaan u gaabinaa. wuu kuhuuraa. bismillaah. waakaa ku daboole. sidaas ayuu ugu huuraa. dibka u gaabinaynaa. sidaas ayuu umataata noogu naqday. bariiska aan soo diyaarsanaynaa oo isku soo naqanaynaa. qaaliga waa kanaa baradhadiina waan dubanoonaa. aan kor ugu shuban lahayn bariiska. kusoo dhawaada. waa kanaa
basashana waan dubaa isna insha allah kor markaan ugu wada shubaayo ayaad arkaysiin. walaaleyga qaaliga waa kana bariiskii ayaan rabnaa hadda inaan dalacano. inta waxaa noogu jiro saliidii iyo basashii, intana buhaaraadka saxiixa ayaa meeshaan ku haysanaa, qarfo, heel, dhagayare iyo xawaaji dhuudhuub aan soo dubay. simbiraalahaas ayaan ku dalacaa bariiska. aad ayuu maasha allah caraf yar qurux badan oo macaan badan siinaa. waa kana waxaan kale ku darayo ila arkaysaan. hadda xoogaa waa shiilaa, ziyaadana gaduud uguma dhigaya basasha. simbir saas ayaan jeclahay. hadda inta waxaan ku shubaa xawaajiyaalka buhaaraadka isku dardarka mushakalka ahay, maraqa jumbihii, tuuni, kabsar caleen, qarfaha, heelka, kulli marka hore aan ku hormariyay waad ujeediin. xoogaa yar hadda waan ku dalcaa bes 5 daqiiqo leh in uu isdhexgalo. caraftiisa ma maleysan kartid maasha allah sida uu caraf badan yahay, waad yaabaysaa. waa ka sidaas oo isku dhexgalay. bariiskii ayaan soo qaadanay, waa kiilo iyo bar bariis ayaan karsanoonaa. 2 saac ka hor ayaan biyo ku dhigay. hadda si fiican ayaan ugu shiilaa. waxaan ku darsanaynaa karoot aan soo hoolay, waaweyn usoo hoolay, marka waa ku shiilaa. bariis horena waa ku jira aan karootka kor ugu shubaayay, laakiin kan soo ceerinkiis ayaan ku shiilaa bariiska si beele kaale arag qurux badan oo kusoo baxaa. maraqina waa kaas sidaasoo noogu badbadayay, waad ujeedeen. hadda marka shiilitaan fiican markaad siisid bariiskoo si fiican u shiishid aad ayuu maasha allah u yahay. hadda marka waxaan rabnaa inaan maraqi aan kusoo shubno, waa isku soo naqanaynaa. waa kana maraqi sidaan ayaan ugu soo shubnay. maraqana kama badinayna, bariis yar macaan badan oo furfur ayaan ka rabnaa. cusbo ayaan ku darsanaynaa, dhadhanka bes noogu dhinaay. hadda marka si fiican hanoogu karo, biyahaas bes wax kale laguma celinayo. marka hanoo soo bislaado, markuu soo bislaado ayaan isku soo naqanaynaa. kusoo dhawaada channelkiina waaye walaaleyga qaaliga ah. walaaleyga qaaliga ah waa kana bariiska sidaan ayuu u huray, waad ujeediin sida furfurka oo noogu soo baxay. furfur maasha allah lagama sheekeyn karo, caraftiisaaba horta wax laga sheegi karinba. waad ujeediin saan lee rabnaa inaan ku huurino sida quruxda badan. marka waxaan rabnaa hadda inaan ku darsano zabiib yar ayaan kor ugu shubanaynaa. hadda bariiska wax noo dhiman ma laha, inuu noo huuro maahina wax kale oo noo dhiman yahay ma laha. kusoo dhawaada channelkiina waa qalbi furan, niyad saafi ah, gacmo furan. markoo soo bislaada ayaan isku soo naqanaynaa walaaleyga qaaliga ah. waa kana waad ujeediin bariiskeena sida qurxoon oo noogu soo baxay, furfur macaan, caraf lagama sheekeyn karo. sidaas ayaan saxanka ugu soo wada gedisanaynaa. waad ujeediin sida furfurka oo noogu soo baxay. sidaan ayaan kusoo wadaa, saxanka dhan ayaan kusoo diyaarinaa. waa isku soo naqanaynaa walaaleyga qaaliga ah. waad ujeediin sida qurxoon bariiska oo noogu soo baxay, waa isku soo naqanaynaa. waa kana bataatigii, bariiskii bataatiga ayaan hadda kor ka saaranay. marka waxaan rabnaa hilibkii haddana inaan kor ka saarno. bataatiga markaan hoos ayaan u dhignay. hilibkana caraftiisa maasha allah, hilibkan lagama sheekeyn karo. sidaan u suubiya u muteeyey oo aan qaacana ku shida ah ayuu wax u yahay macaan badan. marka hadda insha allah waan soo dhamaystira, isku soo naqanaynaa. waa kana walaaleyga qaaliga ah maasha allah tabaaraka allah. sidaan ayay cashadeena quruxda badan macaanta badan noogu soo baxday. waad ujeediin basashina geesaha ayaan saa ugu soo shubnay. bariiskii, mooskii kama maqno, asalaatadii, ileyntii maasha allah bilcaafiya caleena wacalaykum. inta haysata allaha u barakeyso, inta haysana allaha siiyo. walaaleyga qaaliga ah meel kasta aan joogno aan isku duceyno. ilaahay jiradan xun oo adduunka soo weerartay allaha dhexda noogu qabto, allaha naga badbaadiyo insha allah. dadaalka ayaan iska hayneynaa, waa isku duceyneynaa meel kasta aan joogno. jeermiska allaha naga haayo. marka meel kasta aan joogno isku duceyno walaaleyga qaaliga ah. cashadeena sida quruxda badan ee noogu dhamaatay, waad ujeediin lagama karo. waa kana maasha allah sida qurxoon uu kusoo baxay. bilcaafiya caleena wacalaykum walaaleyga qaaliga ah.
subscribe, like, share, comment, ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaaleyga qaaliga ah. la-aantiina waa awaar, idinka ayaa kor ii qaadi karo. subscribe-yada igu dadaala, ii sheer gareeya walaaleyga qaaliga ah. meesha ayaa idinkaga baxay. fi amaan allah, wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaat.